gudoomiye Cabdixakiin kaga mahad celinayna inaad ogolaato inaad la hadasho telefishinka Universal intaas kadib su'aasheeda ugu horeysa waxay tahay khilaafka idin dhaxeeya adiga iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani muxuu ka bilowday بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سيدنا خلافك كدح بلوضاء قدومية هي مدحوينة بطلانه كاية كل يومها وحكوها هي سلك الشرعيات وهي برمانكو وحيردتشية وانا maxay ahaydeenay ilaaliyaha shuruucda dalka waana hay'adda dalka ugu sareysa hay'adahan kaayaguna kaas buu ahaa oo waxa weeye wuxuu salka ku hayay sharciyad waayo wax kale aan sugu iman karaa maba jiraan ganacsina iskuma darsano shirkad manino xoolo iskuma darsan wax kale oo naga dhaxayana ma jiraan laakiin wax naga dhaxaya wuxuu yahay inaanu laba institution mid baan in oday u yahay waliba isaga uu dheeriyay madaxweynaha dalkeena waxa uu dhahay waxa weeye qof ahaan isaga dalka ugu sareeyay anna institutionka baarlamaanka aan u ahaa gudoomiyihiisa ama speakerki waxa kaliya markii suuqa keeni kara waa shuruucda anigu marka waxaan qabaa oo aan kitaab gacanta u saaray oo u dhaartay waa dalka iyo dadkaan xilka u hayo laakiin ma ahayn inaan madaxweyne raali geliyo ama wuxuu rabo aan ka jawaabo ama aan moodkiisa ilaaliyo isaga laakiin ujeedkayga iyo hadafkaygu wuxuu ahaa kii layga doonayey oo ahaa in ummaddu ii dooratay ama xilka aan u qabtay shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba kaa marka waa inaan ilaaliyaa waxa uu xaq u leeyahay intaa waxa dheer oo iyadana aan fahamsanayn oo isku dhac ka imanaya madaxweynaha annaga shaqaalaynay وحاولنا معنا تهي كمبني أنو أمضوا لهذا هاي ونو جبتين أنا قبل قصدك أنا جاي وحنا جبتين أنا جا وكيلك أنا جا مثلا كمبني قولي أيانو حنقول من ماريا ومعمولة أما ماذا حوينا واحد وين تده هذه هذا مركز كمبني مسؤول كتها هاي أو أمضوا أي كل جبته كمبني كمان ملها هذول جبتين سو هذول الحساب تنكي سمري سو دتك رهاي وسجع هذول ما حيس أنت كريوي inaanu ku ilaalino wixii aanu u dhiibnay waliba ma aha inaanu fikirkayga iyo maxay ku ilaalinayna inaanu ku ilaalino sharciyada dalka iyo dadka u taal iyo kontaraaga education inta khilaafkaas sharci خلافتين إنه شيء ما هي الحكومة ما يصوتوا برلمان يميدوا عليه دغيستي maxay tahay dhageysta ma dhageysta wadarkiisa madaxweyne xildhibaan weydii xaqna uu leeyahay smaad garanay waxa weeye faragelintu mar walba waxay ka socotaa xukuumadda anaga waxa weeye ajandaan diyaarinaa ajanda markaan diyaarino waa qabiyo waxaan u soo gudbinaa baarlamaanka maalmaha u horeeya ama maalinta u horeysa ayay ka doodaan waxna ka bedelaan waxna ku daraan waana xuquuq iyo ay leeyihiin dawladdu waxay isku dayaysaa inay kaa faraha la soo gasho waxay isku dayaysaa inay kaa wax ka bedelo waana shaqadii baarlamaanka oo anaaba kuu sheegayo shuruucdaan isku hayne qodobka 4 ee dastuurka wadaha uu baarlamaanka siiyey ayaa had iyo jeer xukuumadda faraha la soo gelisay maxaa ka mid ah ajandayaasha ay farageliyeen ajanda markaan dejinayn waxay isku dayday xukuumaddu kaan anagu saanu u dhignay inay bedesho muxuu ahaa ajandayaasha waxaa ka mid ah ajandayaashaas haddana waa la miinimaasgareeyey oo waa ujeedkay doonayeen iyo dagaalka aniga ugu socday waxaa ka mid ahaa heshiisyadii dowladdu soo gashay waa imaaraad la soo gashay oo eerboodo lagu wareejiyey
maxay ahaydeenay waxaan korontadii lagu wareejiyey anayo kale maxay ahaydeenay iyo kuwa la midka iyo heshiisyadii hore DB Wall ka mid tahay waad ogtahay sida DB Wall waqti yar bay ahayd 2 sano ay ahayd waqtigii rabay wax lagu bilaabo 9 cisho ahaa waqtigiisii wuu dhaafay haddana madaxweynuhu intuu tagay buu dib soo cusboonaysiiyey dawladdiisii markuu cusbaa haddana waanu ka aqbalay haddana xilligu la soo ballamay oo bishii 8aad ahayd way dhaaftay dib eegis marka baarlamaanka xaq u leeyahay shacabkiina waxay ka muujiyeen concern kuwaasaa marka ka mid ah kana leedahay sidaan ognahay dabcan cod gacantaaga ayay xildhibaanadu kaaga qaadeen xilkii guddoomiyenimo ma aqbashay xilka qaadistaas maya sharcina maaha eg maxaa wax lagu aqbalaa soo sharciyad maaha eg arrintu ma aha guddoomiyaha annagaa dooranay annagaana ka qaadnay maaha arrintaas eg waa sida iyagu ka doodayeen laakiin way ka duwanta guddoomiyaha sifa sharciya lagu doorta sifa sharciya lagaga qaadi karaa oo miyaa la iska qaadi karaa mise waa wax qoran oo qaabka wax looga qaadi karaa maya waa wax qoran laakiin tira soddon qodobka tobnaad habraac buu leeyahay guddoomiye marka wax laga qaaday maaha waxaan ka qaaday xilku hayay maxaad ku diidantaa sharciyada habraac sharciyadana soo baro qodobka tobnaad ee xeerosaadka waa waafaqsan miyaad dafirsan tahay inay xildhibaanadu xaq u leeyihiin shalayba hadday ku doorteen inay kaa qaadi karaan xilka xaq bay u leeyihiin laakiin waxay ii marayaan habraac sharciya maaha xildhibaanadu inay iyagu habeenkii ku riyoodaan in cidu u yeedhisana maaha habraac baa jira goluhu uu leeyahay oo laado xeerosaad kaasaa lay soo maraya qodobkiisa tobnaad baa qaba horaan uga hadlay soomaad garan kaa markii soo maran xaq bay u leeyihiin inay iga qaadaan waa mid sifada rabcadoo khaladka ku yahan ku sheegaya baarlamaanka ugu xidhnaa si sharciyada baanu u xidhnay 3 maalmood baanu guddi qabannay oo shaqo ku maqnay baarlamaankoo dhan baa isla gartay maaha waxaan iga gaar ahaa in 3 maalmood la sugo waqtigana la siiyo guddida kadibna markay noo keenaan arrintaas aanu markaas aanu ka hadalno 3 maalmood isagoo xidhan maalinkaan xidhay habeenkeedii ayaa la weeraray adigu marka eeg su-aashaad weydiinaysid waxaad ka fikirtaa haddii guddoomiyaha xil laga qaadayo maxaa xabadda iyo weerarka keenay iyo golaha maya golaha ma cid baa ka qabsatay dawladda mise dawladdu golaheedii baarlamaanka weerartay u weeraraysa waxyaabahaas waxay kuu soo saaraya ilaan waxaana sharciyad ahayn dabcan sife kasta ha ahaatee xildhibaanadu raalli ahaashahooda sida muuqata ayay u aqbaleen inay gacanta u taagaan in guddoomiyihii xilka laga qaado weliba waxaa ka mid ahaa xildhibaanka aad tiri madaxweynuhu su'aal weydiiyey oo ka carooday dadkii gacanta taagay kaas isagay u tahay isagay dhaawac u tahay anigu isaga gaar maan difaacayn markaan maxay ahayd ka hadlayay arrintiisa laakiin waxaan difaacayay in xildhibaanadu institution ay yihiin marka la rabo in ay dembi galaan ama lasoo eedayana habraaca saxdaa loo soo maro kaasaan ku difaacayay soomaad garanin xaq baana u lahaa oo guddoomiyihii baarlamaankan ah soomaad garanin laakiin isagu wuxuu anigu hab sharciya inaan ku difaaco ayaa ilaahay i garansiiyaan fahmay iyo karaamadeeda iyo maskaxdeeda fahamsiisay isna hab sharci darraaca inuu gacanta igu taago ayaa garashayda siisay marka soomaalida xukuumada wadani walba ka kor taga miyadan wada soconina markii hore labadiin miyadan ahayn koox iska warqabto annagu baarlamaanka dhan baan wada soconay baarlamaanka dhan baan wada soconay laakiin waxaan ku yidhi waxa dhacay eeg xoog baaba dhacay meeshiiba waa la weeraro xoog baa lagu qabsaday caadiyan baarlamaanka puntland waxaa lagu xantaa in xilliyada heshiisyada dawladdu ay gasho ama maamulku uu galo la ansixinayo in ay wax meel loo saaro oo ay inta badan maaragtay shuruudahaasi ku xidhaan misleenahay caqabadda ugu weyn taasay ahayd lacag baa la kala qaatay wax la qarin karana maaha waxuna lama qariyo yaa kala qaatay lacagta waxaa kala qaatay baarlamaanka iyo dawladda baarlamaanka aduu ka mid ah $20,000 baa la bixinayay markii aniga la ridayay yaa la siinayay xildhibaanada xabadna waa lagu daray walaatankii waa la aamini waayey marka xabad iyo laatan baa wada socday marka dee taasaaba daliilo ah in xildhibaanadu dee wax meel loo saaraya daliilyada taasaaba u ah waayo eg marka qadiyad iyo mas-uuliyad shacab xildhibaanadu kuma shaqeeyaane waxaad leedahay lacagtay ku shaqeeyaan hadday ku shaqeeyaan baarlamaan aanu xidhnay oo sifa sharciya iyagu ay ugu codeeyeen oo aan ku xidhay doonistoodii iyo rabitaankoodii aan ku xidhay oo aan kala tashaday oo ay ila joogeen oo ay ila qaateen aan ku xidhay isaga oo xidhan inta la keeno la soo ururiyo subaxdii eedhadee kamay codeeyeen sharci darro kuma codeeyeen taasaa daliil ah marka xildhibaanadu
lacagta ay fiirsheen ma fiirin mas'uuliyadda ma loo egmay fiirin sharciyadna ma fiirin mas-uuliyadna ma fiirin lacagtaasay fiiriyeen waay eedaha lagu haddaan jeedinayo dabir aadama afkay gubanaya baa nin laga sheegay waay eedaha lagu jeedinayo gudoomiye ahaan cabdixakiino waxaa ka mid ah in dowladda dhexe aad wakiil uga ahayd xiisadaha puntland qorshahaagu adiga iyo koox kaloo xildhibaanadana ay ahayd inaad ridaan madaxweynaha puntland deni maxaa kugu khasbay arrintaa niyow dani haddaan ridayno 9 bilood baan wada joogno dowlad aniga ii wakiilatay tiri xiisad halkaa nooga samayna ma jirin dowlad ii wakiilatay inay madaxweynaha aan rido oo xilka ka qaadana ma jiro goostee dhaqdhaqaaqeedaa layga arki lahaa waay ma fahamtay mana ay jirin laakiin hal waajib igo abaa jira waajib waxaa igo aniga qarannimada soomaaliyeed inaan qof ka mid ahay oo mas-uul ahay waay difaaceeda iyo ilaalinteedu waajib isaaran wey waay ma fahamtay laakiin puntland dowlad soomaaliyeedna wax ma yeelin aniga intay ii soo martana anigu wax ma yeelin haddii jirtana dee waa la arki lahaa aduu haddaad og tahayna waad sheegi kartaa xogta anigo qaladkaasaad ka gashay waay dowladdaad mas-uuliyadda u haysay Waay. stateekaad u haysay Aha. adigoo dowladda ku raaligelinayaad oran kartaa waay ma jirinin laakiin waxay ahayd wax abuur been abuur la samaynayo midna waan kuu sheegaya oon iska tegin waay hadafyada puntland lagu asaasay waxaa ugu weyn oo ugu muhiimsanaa in dowlad soomaaliyeed lagu raadiyo waay marka tii lagu raadinayo in lagu cagagooyo waay marna dee aanu raalli kama noqon karo waay ma aqbalin ayaa tiri mana ku qanacsanin sidii xilka liiga qaaday waxaad ogtahay sidoo kale in xasaanadaadii xildhibaannimona sidoo kale la laalay haddii aadan aqbalin maxay tahay tillaabada kale oo aad qaadaysaa iyo horta way kala gaal bay ahaayeen guddoominimada qaadisteedu iyada dee habka sharci darrada ah baa loo maray tii xildhibaannimadaada ayikaadi qori bay ahayd iyo xabad baarlamaankii baa la weeraray ilaaladii baa lagu laayey habeenni baa lagu soo duulay cid haysato laga qabsaday ma jirin waay xoog baa lagu qabsaday waay xildhibaanadii baa lacag loo qeybiye lasoo ururiyey somaad garanay baarlamaankii oo xidhan baa sharci darro lagu furtay waay taasi sharci darro saasay ku noqotay wataan ka soo sheekeeyey midda kale tan xasaanadda niyow xasaanadda anugu hadda ilaahay hadda ma fahamsanin ujeedka laga leeyahay waay laakiin waxaan ku gebagabeynayaa sagaaraa bad ku kaadiday badda biyaheedu waa badan yihin soomaali waa ku kaadiday intay tagtay bay ku kaadiday sagaaladuna ma kaadi badna marka waxaa la sagaaladaa badda ku kaadiday inaanay baddaa wasakhaynayn waa loogyahay naceeduun bay bogatay naceedii bay bogatay waxaan u arkaa xasaanadda anigu awalba mas-uul baan ahaa waxaanba ku doodayay guddoomiyaana waay halkaa xubinka u soo fadhiisteen waay waxaa layga qaaday fulaynimo iyo kawadhnimo iyo inay nacoodii bogteen Waay. keliya inay tahay baan arkaan wax tilaabahaad kula qaadaysana ma jiraan aniga Ha. oo tallaabo sidee macnaha haddii aadan ku qanacsanayn xilka qaadista Ha. maxay tahay tillaabada kale xigto tallaabada anigu mar kasta waxaan marayaa anaa waxaan cid ku eedaynayaa waay nidaam sharci inaan la marin nidaam sharci baan marayaa waay haddii nidaamka sharci wax lagu sixi waayana taasi markaa tala la fila ayaa jirto dadku dee isuma khasbana noo fasirtaa cid walbaa waxay matashaa degaan waay dadka puntland isugu yimina waxay ahaayeen gobollo waagii hore isma khasbin waay ismana soo raafin waay iyagaa tale intay isugu yimaadeen waxay kala heleen inay wax Ay dhistaan wax wadalahaanshay ku heshiiyeen waay haddii sharciyaddana dhabarka laga tuuro wax wadalahaanshaha dhabarka laga tuuro in gaar loo kala tashado ayay noqonayaad leedahay ayay noqonaysaa Waay. Isla waan ku su'aashaas. shaqaynaynaa wax diidayaana ma isla jiro su-aashaas dhowaan dabcan waxaad og tahay in aad sheegtay inaad wada tashi u aaday deegaanada sanaag bari iyo sidii maamul gaar ah loo dhisi lahaa taladaasi ma waxay kugu dhalatay markii aad la kulantay dhacdadii baarlamaanka maxaase kaaga hirgala wada tashigaasi laay hadda dhacdadaasi anigu markaan gobolka tegey waxaa igu dhaliyey dareenka dadka markaan arkay dareenka shacabka iyo shacabka shucuurtiisa ayaa igu dhaliyey kadibna taas inaan maanaj garayo baan ku khasbanaaday amay caradaada ahayd because guddoomiye maya cado igama muuqan hadalkaygii iyo hadalladaydii waa wada duuban yihiin shucuurka dadka inaan maanaj garayo ayuu ujeedkiisu maxaa isku beegay waxaana xilka qaadistaadii. waxaa isku beegay dad baa anaa waan matelayey waay matalaadaan matelayana waxay u arkeen waddooyinka la maray in wada lahaanshihii iyo wax isku darsigii iyo sharciyaddiiba la lumiyey sax dadku marka taasay ilaashanayeen oo ay dhibsanayeen oo ka cadhaysnaayeen waay maadaama mas-uulkoodii ugu sarreeyana ahaa siyaasigoodiina ahaa inaan maanaj garayo waan ku khasbanaa tashi baa noogu baaqay tashigayguna laba qodob buu ahaa maan qarin waa duuban yahay puntland inay u baahan tahay badbaado waay oo ay waddadii burburka cagta saartay cid kasta mana oran gobolkaa keliya waxaan ku iri cid kasta oo puntland burburkeedu uu dhibayo
ama waxyaabaha sida wax u socdaan ay dhibayso inay tala isugu yimaadaan puntlandna la badbaadiyo taa haddii la waayo balaan biigu wuxuu noqonayaa in tashiyo dadkii awal isugu yimi in la kala tasho waxaan la soconnaa in beeshaad ka soo jeedaa ay weli baaqi ku tahay puntland dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan intaba maxay tahay rajada aad ka qabto dhaqdhaqaaqaaga siyaasadeed marka laga reebo siyaasadihii looga bartay ee gobollada sanaag bari iyo sool ee ahaa inay dabcan mararka qaar marna somalilan marna puntland dadka ay u kala qaybsan yihiin iyo horta waxaan kuu sheegayaa ilaahay baa horta meesha ku beero puntland iyo somaliland waa u dhexeeya maamaadaasi haba xumaatee iska sheega nin baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi xiniyaha lala hadlo waxa war xiniyo nima iyu qarmuunidina idinka waxna moogtahay ma bahalkeysaan idinkama yimaadaane waxay yidhahdeen iyo laba shay oo khayraysan baanu u dhexaynaa taasaa marka keentay inaanu mar walba aanu u muuqanno wax maaragtay fool xun horta waxaa weeye dadkaasi labadaa meelood bay u dhexeeyaan labada meeloodna danahoodun bay ku gaadhaan ee maslaxaday u hayaan oo muuqataa ma jirto danaha siyaasiga unbaa lagu gaadhaa waayo hadday u hayaan way ka muuqan lahayd waxaa la yidhi deeray xeradegdega ka warran waxay tiri shafkaygaa laga waraystaa hadday waxu hayaan way ka muuqan lahayd gobolladaa horumar baa ka muuqan lahaa ay keeneen waxay u qabteen baa ka muuqan lahaa soomaad garanin dadku marka iyagoo taa qaba ayaa sharciyaddii iyo wadalahaanshihii awalba beenta laga sheegaya oo dadka lagu maaweeliyana meesha ka baxeen taasaa marka waxay keentay in ay dadku kacaan shucuurkooduna kaco waxaa soo haray siyaasiyiinta baaqiga ku ah waa maslaxad siyaasadeed taas dhaqankii qaarkood dhaqan anu moogi anu dhaqan moogi dhaqan beeshaada ka soo jeeday puntland wax ku darsatay baaqi ku ah ma jiraan baaqi hadda cid ku ah oo dhaqan aanu garan maayo ma garanayo adaa haddaa ii sheegi karo oran kara hebel baa ama garowe jooga ama hebel baa halkar jooga waad oran kartaa moogi kaadi moogi laakiin siyaasiyiinta maslaxadaha lihi dee way joogayaan iyagu because maslaxadahoodii iyo danahoodii baa ku xidhan laakiin waxay iyadana maslaxadoodu dhimanaysaa marka shacabweynuhu intuu tashado puntland sixideedana la waayo iyaguna tashadaan oo go'aan gaadhaan kuwaasna maslaxadoodu marka halkaas ku afjarmaysaa dabcan puntland beele isku tegay dad wax wada qaybsada waaye waxaad ogtahay markii adigu xilkii lagaa qaaday kadib guddoomiye ayaa la doortay oo weliba beeshaada iyo deegaankaa ka soo jeeda sow ma dhihi karno keliya cabdixakiin uunbaa meeshii ka baxay weli beeshii iyo hanaankii wax wada qaybsiga ee puntland ku dhisneed waa sidiis niyo horta eg waxay ku dhisan yihiin sidooda waa mandate mandatekuna wuxuu salka ku hayaa sharciyad wuxuu inaadeer way sharaf iyo qiimo berayaan hadday sharciyadda dhaafaan ka nasiib ka nasaartuna wax dhib badan markaa maaha laakiin waxa macnaha loo u baahan inaad fiirisaa waa sharciyadda mandateku salka ku hayo taasi hadday meesha ka baxdo qof meel joogaa wax laa qiimata laha qof meel joogaa ama qof wax sheeganaya laa qiimata laha wey waxa qofku wax ku yahay ama stateku wax ku yahay ama wax lagu sheegan karaa waa mandate keliisa siiyey oo salka sharciyadda ku haya hadday labadaasi meesha ka baxaan qof wax sheeganay anaa hadda waxaan rabo sheegan karaa laa qiimata laha guddoomiyaha hadda xilka haya miyaanu matalaadda awood qaybsiga ee beelaha ku dhisan uusan ku fadhin kursiga deegaanka aad ka soo jeeday ee beesha eg aniga mis inuusan matalin aad aaminsan tahay beesha anigu ma aaminsan matalo ma matalo beesha saanu matalin baan aaminsanahay wuxuu matalayaa markuu sharciyad ku yimaado sifa sharciya markuu ku yimaado magaciida waa sitaa waa mateli karaa laakiin sifa sharciya haddaanu ku imanin ma mateli karo waxaase caddayn doonto salu noqon doonto ummadda la leeyahay wuu matelayaa hadday dee puntland iyadu ay ogolaato oo dee sidaa ay maaragtay dee ku ogashahayna way muuqanaysaa oo markaa dee wuu matelaya hadday tashato na waxa weeye waa dee waalitaan ka hadlayo waa laa qiimata laha waa nin meeshiisaa iska joogo oo oday shaqo tegey buu noqonaya waxaadna daliilkuuga ah dal iyo dibad shucuurka dadka waad arkaysa iyo shacabka samaad garan taasaaba kugu filan adiga hadda waxaad su-aaliga weydiin kartid maa shucuurka dadka wataad arkaysay gudaha hadday joogaan iyo dibadda had joogaan waxay ugu soo simeen
annaga Puntland haddii sharciyaddii la lumiyey oo guddoomiye sharciga ahaa oo joogay sharci darro meesha kaga baxay daadmiinis waxay la tahay Puntland annaga xaggayga in la waayey markiisa sharciyada dibadda markay hadlayeen way duuban yihiin cabdi xakan beeshu ma cabdi iyo cali ayuu kala dooranaysaa labada ninba adiga iyo guddoomiyaha kaleba beesha ayaad ka soo jeedaan ma cabdi cali ayuu kala jecel yihiin aad leedahay anugu hadda su-aashaas aad weydiinaysa taa ma fahmin markaad leedahay beeshu ma ku midaysna ma waxaad ula jeedaa anigu miyaan iri beeshu anay raacsan tahay isaga ma aqoonsan waraysigu iyo kaa xumaane su-aashaa ka jawaab waa inuu yahay waraysiga iyo su-aashaadu macnaha wax dadka wax u faa'iideynaya gudoomiye waxaad halkaaga u dhigtay beeshu meel kastay joogto waxaad tidhi waad aragtay shucuurkee muujisa ma waxaad leedahay beeshu aniga iyo xilka qaadisteedii ayay ku saf noqotay guddoomiyaha iyo talada hadda hayaa ma raacsan adigaan su-aal ku weydiinaya teeda ka jawaab waa kaaga jawaabaya su-aal baan ku diinaya waa jawaabteedii ka jawaab shucuurka adiga dadka kaaga muuqanayay gobolladaas muxuu ahaa dal iyo dibad taasaa jawaabaya maxay ahayd adaan hadda ku weydiiyo maxay ahayd adaan de waa jawaabteedii guddoomiye shucuur midaysan oo anigu aan ogahay in dadkaasu intay meel isugu yimaadeen ayagoo u dhan ay mowqifkaaga ku muujiyeen ma hayn marka laga tago dad gooni ah marka ma waxaad qabtaa adigu inay beesha adiga kugu daba faylan tahay ee aanay taageersanayn raacsanayna guddoomiyaha hadda jooga dadku sidiisaba doonis buu ku hadlaa waxa fiican dadku doonis buu ku hadlaa anigu ma hadlin haddaan hadlayna anigu cid qof gaara lama hadlin laakiin waxaan ka hadlayay wixii dhacay iyo sharci darrada beeshu iyadaa hadashay baan ku yidhi hadday dibad joogtana iyadaa hadashay hadday guda joogtana iyadaa hadashay ma fahamtay iyadaa marka ka qaadan kartaa waxay qabto maamul ka madax badnaan Puntland iyo Somaliland miyaad qorsheynaysaan inaad dhistaan oo adiguna aad rabtaa inaad u noqoto hogaamiye anigu hogaamiyenimo dooni maayo waxaan kuli balan eegaygu horena aan u sheegay wuxuu ahaa sixitaanka Puntland la wada leeyahay haddii la waayo waa la kala tashanaya somaad garanin hadday Puntland taa u soo hogan weydo waa la kala tashanayaa haddaan sheegaynaa dadku awalba dad isu yimo gobol la'abay ahayn waa isku darsaday somaad garanin intii tale kale heli kartaaba way tashanaysaa wax reebanna ma aha inay wax samaysato hoggaan baad ka noqonaysaa iyadoo wax kale ummad badan baad dhulka joogto anugu hoggaannimana hadda aan moogtahay meel igu xidhanna ma jirto laakiin dadkaasaan ka mid ahay maamulka uu hogaamiyey madaxweyne Deni dadka qaar waxay ku eedeeyaan in ay ku gadaaman yihiin koox la yiraahdo Aranjan oo taladii marooqsatay dad badan sida ay qabaan ma qabtaa fikirkaas adigu fasiraad naga sii kooxdaasi waa koox group ah waana kooxda hadda Puntland ka noqotay kooxda qowlaysatada ah ee ficiladan dadku ay shacabku dhibsanayaan oo dhan samaynaya soomaad garanin waxay kooxdaasi waa kooxdu ka hadlayey madaxweynihii hore cabdilaahi maxamed cali gaas oo buugga ka qoray waa fayrus Puntland muddo ku jiray haddeerna weli ku jira soomaad garanin isuna arka weliba hadda in iyagu tan ay dhisteen Puntland baa dhisatay laakiin iyagaa waxay soo arkaan inay dhisteen waxa marka iyaga fakarkoodii taageero u hiiliyey madaxweynihii dadku doortay baa wuxuu aaminay in iyagu dhisteen laakiin aan shacabka Puntland dhisan taasaa marka miisaankii wuxuu u iishay xaggooda goos madaxweynihii baa aaminay madaxweynaha shacabkaa dhistay baarlamaankaana soo doorto shacabka matelayay shaqada iyagaa u dhiibay soomaad garan anuu dadkii dee waxaan ahaa taageersanaa soomaad garan laakiin isagii baa wuxuu aaminay fikirkii ahaa inay nimankaasi dhiseen iyagaa qabay moogtahay fikirkii way ku qanciyeen oo wuu qaatay taasaa marka waxay keentay in miisaanku xaggoodii u iisho talada Puntlandna iyagu hadda ay xagga dambe u fadhiyaan oo marba dhinacay doonaan u rogayaan ama ay remoodba ku hagayaan kan TV dhaladoo kale ay ku hagayaan marka waa koox jirta waana fayrus dhibaatada Puntland ka jirtaana wayaga haddaan reer Puntland xal loo helin haddaan kooxdaa xal loo helina Puntland wadadii burburka bay cagta saartay kamana soo noqon doonto hadday burbur tahay waana sii burburaysaa adigu ma ka mid ahayd xildhibaanadii codka siiyey madaxweynaha talada hadda haya anugu haa dadkii dhisay baan ka mid ahaa codkaaga ka guddoomiye ahaan isagaa tiis dadkii dhisay baan ahaa kooxda aad sheegtay maxay tahay dhibaatooyinka ay ku hayaan Puntland waxa ka mid noo sheegi kartaa hal iyo labo waxay ku hayaan waa kooxda hortaagan in qarannimo Soomaaliyeed la helo waa kooxda hortaagan in ummadda talada
ay wax ku yeelato waa kooxda hor taagan in instituushanadu si madax bannaan u kala shaqeeyaan waay waa kooxda wax walba ku dhisaysa maslaxadahooda gaarka iyo danahooda gaarka waay waa maasanta shahaad muqdisho u joogtaa maxay tahay muqdisho waa caasimaddii dalka waana fadhigii dowladda soomaaliyeed anuna nin soomaaliya baanahay soomaad garanin joogisteedu markaa macnayaal badan bay samaynaysaa howlahan sixitaankaa waan ka wadaa wada tashiyada dadka gobolladaa degan oo halka joogana waan ka wadaa soomaad garanin waana dowladdii fadhigeedii oo dee anuu nin soomaaliya baanahay soomaad garanin howlahaasaan marka u joogaa oo ah tashiyada dadka gobolladaas ka soo jeeda iyo tashiyada dadka reer puntland ee ka soo jeeda puntlandba labadaba waanu joogaa waay waxaa nagu maqaalaha in lagu wado safiirka soomaaliya ee eritrea arrintaa ma jirtaa maya anuu safiir mana codsan dowladdana ma weydiisan laymana wado soomaad garanin mana doonaya kuma qanacsani waxaan ku qanacsanahay shaqo kalena haddeeraan kuu sheegaya qaban maayaanu shaqadaan qabanayaa waa sixitaanka puntland haddii la waayana waa la kala tashanayaa oo tashiga iyo hawsha aan wadaan wadaya laba shaqo taa keliyaan hadda qabanaya waa shaqada keliyaan hadda u soo jeedo qarin maayo dadka waan u sheegaya cid walba maqlaysa waxaan u sheegaya anugu hadda xil ma rabo dowladdana uma soo raadsan shaqada aan wadayaa waa puntland la wada leeyahay in la helo wixii dhacana dib loo soco haddii la waayo waxa aan wadayaa waxay tahay oo laygu ogyahay in la kala tashado cid walba oo tale kale heli kartaana ay tashato ee aan cidina isu khasbanayn sixitaankaas maxaa diidaya in inta deegaankii aad ku laabato puntlandtii caasimaddii tagto halka aad ka soo bilowdo waaba ka bilaabay sixitaanka baan hadda halkan safar baan ku imi waxaan ka waday gudaha waana laabanaysaa waana laabanaya waay hadduu alleed waay waxaad og tahay hannaan dimuqraadiyadaha inay aaddo ayay rabtaa puntland welina lama hirgelin taasi oo shacabku awood uma laha ilaa hadda inay iyagu doortaan cidda hogaaminaysa maxay tahay caqabadda hortaagan puntland inay gaarto doorasho dadku ay go'aamiyaan caqabadda hortaagani puntland waxa weeye waa wax iska muuqda waa caqabadda sababtay in koox yare hadba iyadu aysay rabto wax u dhigto maamulkana gacanta ku hayso kaas ayaan marna ogolaanayn in puntland dimuqraadiyad gaadho ma maamul kastoo soo maraad ula jeedaa kooxa qabsato koox baa haysatay maamul kastoo kan keliya maaha koox baa haysatay kooxdaasun baana daba fadhiday somaadka qoladan weliba aaran iyagu labayba kii labaad bay hadda marayaan iyagu waay tii cabdiweli mayaga haystaa maya tii farwad ula jeeda tii farwad haysta waay tanna iyagaa haysta marka waxyaabahaasi ma dhacayaan haddii dadku rabitaankoodu meesha iyo doonistoodu timaado in kooxi meel daba fadhiisato ma dhacayso dalku axsaab buu yeelanayaa waa la sifinayaa waa la ismucaaradayaa maxay ahaydeen khaladka dowladdu gashaa la sheegayaa somaad garanin hebel baa nacay iga bedela meesha waa ka baxaysaa hebel baan doonayno fikray ka soo horjeeda way ka baxaysaa dimuqraadiyad furan bay noqonaysaa horena uma dhicin haddeerta la sheegayo leeyahay waa la daha furaynaa inay daha furmayso ma ogeli waxaad ogtahay puntland waxaa ka jira saddex xadhigisudhiib wax la yahdaa ka jira xadhigisudhiibkaas saddex ma dhaafo qolo saddexda qolo waa saddexda xisbi ay u arkaan inuu xaq yahay saddexdaa xisbi unbaa puntland ka jira marka xisbi puntland magac le la yidhaahdo xisbi hebel ma ogine maxaad ula xisbi hebel ma jiro maxaad ula jeedaa laakiin waxaan ku yidhi saddex xadhigisudhiib baa jira saddex xarig saddexdaa xadhiguun ma noo fasiri kartaa saddexdaa xadhig ayuunbaa ku miilaysta madaxnimada puntland dad badan aan fahmaynin iinkaade cid walbaa fahmaysa cid hore u soo qabatay cid kaloo qabatay ba ma jirto ma qabaa'ilkaad ula jeedaa waa qabaa'il waay soomaad garanin cid kale oo qabatay oo madax ka noqotayna puntland ma jirto waana waxyaabaha keenaya ummaddu hadda inay puntland ka qanacdo soomaad garanin dimuqraadiyad puntland halkaasi hore uga joogtay waxaa soo hadhay tan hadda leeyahay waa la daafuray anu aad baan ula yaabana waxaan aad ula yaabana oo wax laga xishoodaa oo damiirka iyo caqliga saliimka ay diido inaan maantana wax ku hadlo ama maanta intaan wax sameeyo berri wax kale ku hadlo anigu cabdixakiin madaxweyne deni waxaad ogta wuxuu weeraray baarlamaankii xabad wuxuu ku bixiyey lacagtii ummadda sharci darro inuu ku rido guddoomiyihii baarlamaanka hantida ummaddeedii inuu isticmaalo wuxuu ka xishoon waayey inuu maxay ahaydeenay wasifo sharciya maro oo xabadna iska daayo dhaanuushna iska daayo waa madaxweyne waxyaaba badan buu adeegsan karaa
wuxuu ka xishoon waayey inuu ummadda ama adduunka ha noqoto international community-ga ama ummadda kale ha noqotee indhahooda ka duwa waxa uu samaynayay oo farxumaa wuxuu sameeyey inuu ciddii hadasho oo tirahdo waxaana khaldan yidhahdo ha la xidho waxaad ogtahay hadda dad inay u xidhxidhan yihiin 20 cisho in gaadha bari inay ugu xidhan yihiin odayaashii ugu waaweynaa ee dadka hormuudkiisa ee dhaqanka ahaa ninkan noocaa u dhaqmaya waxaad kaloo og tahay inuu har su'aal oo xildhibaan xaqul oo kii soo doortay weydiiyey uu ku sigtay inuu dildillaaco qarxaba isma cadhooday oo xataa baarlamaankii ka cararo oo inta ka boodo iyadaan waa fasixin ninkii noocaa ahaa oo waxaa samaynayay inuu maanta yidhahdo dimuqraadiyad baan daah furaya ilaah baan ku dhaartay waa wax laga xishooda waa wax qof ibnu aadani oo dhagihiisa iyo afkiisu ismaqlaya wuxuu ka xishooda baa aniga yarata waayo sidee dimuqraadiyad ogolanaya su-aal baaba dhibtay ilaa dimuqraadiyadda lagu sheegaya waa axzaab afkaarta in lagu kala duwanaado dadku inay doodaan in lays eedayo in lays ifiyo in maxay ahayd in dowladdu wax khalado la sheego in lays dabagalo waa sidaas dimuqraadiyaddu ninka marka su-aal xamili kari waaye ama da shacabkiisii dhegaysan kari waaye waxay ka cabanayeen oo qancin kari waaye oo ila xidha kii hadlaba dimuqraadiyaddu maanta leeyahay waan dah furay oo sheeganaya ma gaarsiin karaad qabta adigu waxa weeye waa waxaan waxba ka jirin waxaan oran lahaa niyow xishood afkaagii dhagaha baas maqleen maalinku baas ka soo degayey haddeera waxaa la soo gelaya marna aad ula yaaba miidiyaha boose maalintu ka soo degayey oo cabdiweli uu joogo waliba madaxweyne ka furfuran oo waxa weeye ummaddu dee xor u tahay fakarkeedii iyo waxay aqoto uu joogo ayuu wuxuu lahaa hebel iyo hebel baa la xidhay dadku way hadli karaan waa wuxuu ku hadlaya isagu maantana wax kaluu leeyihi marka waxa fiican qofka ibni aadankaa siyaasiga ahay inuu niyahu qowlkiisa iyo ficilkiisa iswaafajiyo wixii shalay iyo wixii maantana isku daya cadaqal inuu isu dhoweeyo marka waxaan leeyahay wax suurtagelayana maaha nin dimuqraadiyad ka bixi karana maaha nin awooddeeda iyo kabasitigeeradana maaha waa nin digteetarnimo u abuuran oo u samaysan marka been buu dadka u sheegaya aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa cabdixakiim maxamed axmed dhoobadaareed gudoomiyihii baarlamaanka ee puntland oo waraysi gaar ah siinaya tv universal gudoomiye aad baad u mahadsantay adaa mudan insha allah